الحمد لله حق حمده والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على النبي محمد وأصحابه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى فإنها وصيته للأولين والآخرين. إن شاء الله تبارك وتعالى خطبتنا maanta waxay ku saabsan tahay oo aynu dul istaagi doonaa libaasu taqwa, huga iyo dharka alla ka cabsiga. Allah tabaaraka wa tacaala waxa quraanka uu inoogu sheegay: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. رأى آدم ورأى بنو آدم waxaanu idiin soo dejinay baa yidhi alla tabaaraka wa tacaala uu yidhi waxaan idiin soo dejinnay hu iyo dhar idin astura oo aad ka samaysataan waxyaabaha kala duwan ee baalasha iyo dhirta iyo waxyaaba fara badan iyo xoolaha aad kala baxaysaan hargaha iyo waxyaaba badan aad ka samaysataan, taasoo cawradiina asturaysa oo dhaxanta iyo kuleylkana idinka celinaysa. walibaasu taqwa daalika khayr, dharka alla ka cabsiga ka sii khayr badan oo wanaagsan. dharka alla ka cabsiga culimadu tafsiiro badan bay saareen. waxaa ka mid a tafsiirada ay saareen in la yidhi waa dharka waafaqsan shareecada iyo diinta, ee aan dhar qofkii ceebtiisii muujinaya ahayn, ee wax diinta khilaafaya ahayn, aan gaal lagaga dayanayn. sidaas bay culimada qaar u dhigeen. ahlulcilmiga qaar waxay ku fasireen walibaasu taqwa waa xishoodka bay yidhahdeen. libaasu taqwa, dharka alla ka cabsiga lagu sheegayaa waa xishoodka weeyaan. calaa hada tafsiir innagoo ku soconna waxaynu yardu istaagi doonaa khuluqa iyo dhaqanka xishoodka oo zamankan dambe iyo aakhiru zamaankan la soo gaadhay uu noqdayba bidaaca zaahida, cid waliba iskaga tagtay. oo xishoodkii iyo qofku inuu sariigto oo waxyaabaha qaarkood uu ka afqabsado oo naftiisa iyo ehelkiisa iyo ubadkiisa akhlaaqda wanaagsan iyo xishoodka uu ku barbaariyaa ay noqotayba wax takhalluf oo qof dambeeya loo arkayo. qofba qofku ka af xun yahay ee uu ka erey xun yahay ee waxa afkiisa qalbigiisa kusoo dhacay maskaxdiisa kusoo dhacaba uu iska odhanayo isagoon filtergaraynba, isagoon maskaxda soo marin oon shaandhayn waxa uu ku hadlayo. qofba qofka uu afkiisa ka butaacana loo bartay markaa qof aftahana, qof markaa xaqiisa dhacsan yaqaana, qof hadal karmeeda, qof caynkana sidaas loo bartay. waxaa markaa zaada fi tiini billah, waxaa dhoobada sii qooyay oo inooga sii daray. berigii hore waa la kala qarsoonaayo ka bilaa xishoodka iyo ka xishood kale nin waliba gurigiisu iskala fadhiyo waxayse soo gaadha wax maqaaxii isugu yimaaduun bay ahaayeen. hadda social media wax la yidhaha baa la furayoo daafaha adduunyada iskaga tallaabayo dayrarkii iyo guryihii dhexdoodii ka dhigay dadkii wax salli ku wada fadhiya caw. sidaa darteed baa dadkii xishoodkii iyo digigixii iyo sariigashadii iyo inay ilaahay iska eegaan waa laga tegey. dad fara badan oo ka midana waxa ay ku hadlayaan iyo ibnu aadamka kale xuquuqdooda siday ugu xadgudbayaan iyo dadka kale markaas sida ay u dhaleecaynayaan ay wax uga sheegayaan waa mir subxaan allah weeyaan. qofku hadduu iimaan leeyahay lagama quustee, ilaahay baa la xasuusiyaa tabaaraka wa tacaala, waa laga yaabaa casaa wa casaa wa casaa. in badan baa la arkay dad fogaadayoo marka ilaahay la xasuusiyey qalbigoogu dib u soo noqday oo diiray oo iimaanku qaboojiyey. xadiiska uu qofku garanayo iyo aayadda qofku uu garanayo waxyigu barako kalu leeyahay, waa loogu celiyaa qofka isagoo garanaya faatixada macnaheeda, isagoo garanaya qul acuudu birabbi nnaas macnaheeda, isagoo garanaya haddana mar kastoo loo akhriyo loo sheego iimaan baa laga kororsadaa. sidaa darteed bay muhiim tahay inaynu isxasuusino nusuusta sharciga ee diiniga ah ee qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray ee inoo ammaanaya xishoodka, ee inoo sheegaya xishoodka iyo qiimaha uu leeyahay. xishoodku maxay shareecadu u taqaanaa? goormaa la odhanaya qofkaasi uu xishooda? nebi maxamed wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, waxaa la ii soo diray si aan u dhammaystiro darajooyinka ay leedahay akhlaaqda ee kala sarsareeyay qiyamkeeda, inaan dhammaystiraa la ii soo diray baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. akhlaaqdana waxaa ugu horeeya oo koow ka ah xishoodka. ilaahay laga xishoodo, ilaahay khalqigiisa laga xishoodo, qofku naftiisa uu ka xishoodo, ta isaga ku jirta uu ka xishoodo, ilaahay hor istaagi doono tabaaraka wa tacaala uu ka xishoodo. waxaa suubanuhu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam: alxayaau waaliimaanu qurinaa jamiica
إيمانك يحشوتك ولا لماني ولا يسقط كيبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام فإذا رفع أحدهما رفع الآخر هذه مثل وياك كلنا مغيه بلو فيرسو قفك بلا حشوتك إيمان مله wixii ku soo dhacay bayraa wixii uu doonaba sameeyay iska socdo una wax walba marka wax way dhax qaaday iimaan ma laha sidoo kale gaalku qofka bilaa iimaanka in xishoodba ma laha wuxuu doono iska sheega oo wuxuu doono ku hadlaa oo wuxuu doono qaanuun iyo sharci ka dhigta oo taymka la inagu dawaqiyay maba soo hadal qaado oo anigu inaan soo hadal qaadaba way igu adag tahay adduunyada wata la wareejinayo wixii marka wax weeye musiibada ahaa oo inuu ragna rag wax ka raadiyo dumarna dumar wax ka raadiyo in shicaar loo samaysto calana loo samaysto adduunyada dhan lagu baahiyaa waa xishood darro xag u dambeysay weyn waa aqli liidasho xagga u dambaysa bal waxaad muqaaranaysaa oo isla eegtaa ibnu aadamku hadduu waxyiga ka tago oo uu diinta ka tago reer magaalnimada iyo ilbaxnimada iyo wuxuu sheeganaya aqoontu sheeganaya bal halkii la gaadha hadda eeg reer galbeedka howlaha wadwada qawaaniinta iyo dasaatiirtooda sharciga waddankooga lagu maamulo waxa ku taala oo crime oo dambi ah qofka in la gudo waxay u arkaan dambi weyn xubnihiisii la jarjaray loo dhawaaday xubnihiisii taranka xaq darro loogu dhawaaday la dhibaateeyay qofka cidii gudaana xabsi bay ku mudanta inta markaynu halkaas la dhignay haddana waxay baneeyeen oo gol yihiin inuu qofku intuu qaliimo galo ninkiina gabadhiisu soo rogo xubno dumar loo sameeyo oo xubintii ragaba laga gooyo gabadhiina nin loo bedelo oo xubnaheedii la googooyo caynkaas bisha iyo qaanuunku haddana u banaynaya marka qofku ama dadku sidoodaba ilaahay abuurtay tabaaraka wa tacaala qaanuunka iyo sharciga u dhigay hadday tiisii khilaafaan oo bal ay isku dayaan iyagu inay maskaxdooda ku keenaan waxa noocaasaba ka soo baxaya dabadeed waxa dhacday dadkii galay ee camaliyaadkaas ku sameeyay qaar badan oo ka mid ah intay camaliyaadkii lagu guuleysan waayay ayaa waxay noqdeen dad daasad halkaas ka taala laa rajul walaa imra'a inna maaha gabadhna ma كيسبدلay raganimadii ka taga dumar tagayna da cuquubiyo musiibo ilaahay buu adduunyada kasbaday iyo nacdal intuu adduunyada ku nool yahay waa musiibo weyn adduunyadu waxaad soconaysaa xaggii u dambeysay bay maraysaa xagga sharki iyo macsiyada iyo ilaahay diintiisa laga fogaado nabiyadu wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inna min kalaami an-nubuwwati al-uula nabiyada hore dhaqankii laga soo gaaray waxa ka mid ahaa xishoodka yacni wixii ilaahay nabi soo diray oo dhan waxay isku waafaqeen oo mid waliba dadkiisa uu ugu baaqay oo rukun iyo tiir dhex u ahaa xishoodka oo dadkiisa ku oran jiray idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddaanad xishoonaynin waxaad doonto samee maxaa waad arki doontaa waxa kaa raaca wey cuquubo adduunyatu aakhiraba bal waxaad ka gurataa aynu eegna bal midhahaad ka goosato aynu eegna ha xishoonina bal hadda wad halkii kula gaadho qof ka soo reeyay oo ka faa'iidaystay ama adduunya aakhira ku badhaaray lama arag xishood darro adduunya aakhiraba caar iyo silic iyo xumaanun baa u dambaysa qofka ilaahay ka xishoon waaya naftiisa ka xishoon waaya khalqiga ilaahay abuurtay ee dhir iyo dad iyo doog bala ka xishoon waaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam nabi maxamed inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mid aad u xishood badan oo aad isku astur badan walaa yuraa min jildihi shayun min istixyaa'an minhu jirkiisa bar lagama arki jirin isagoo ilaahay ka xishoonaya tabaaraka wa tacaala waa kuwii yidhiba markaa reer bani israa'iil caado waxay u lahaayeen inay wada maydhaan raggoo marka nebigu wuu ka xishoon jiro lamuu maydhan jirin gaar buu u maydhan jiray inta kalena dee maryihiisu ku asturnaa dacaayad baabay u sameeyeen suuqa ay u geliyeen inay yidhahdaan ceeb baa ku taallo oo waa wuxuu ragga ula maydhan ilaahi u soo dhexgeli laaya dhagax baa kala cararay maryihiisii si ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkii u tusiyo inaan nebigu cawriyo ceebtoona lahayn ee uu dadku la mid yahay laakiin xishood ilaahay uu ka xishoonayo tabaaraka wa tacaala ayaa arrintaa ku keentay waxaa nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam nin walaalkii waaninaya oo kule nin wax walba waad ka xishootaa une raganimadaadiiba xishood baa qaaday hadal oo gartaada sheego oo wax saa ula hadlayo oo ku tirtirsiinaya inuu xishoodka iskaga tago nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam dachu fa ina alxayaa min aliimaan waar iska daa xayaaga iyo xishoodku waa iimaan riwaayo kale waxay tilmaamaysaa fa ina alxayaa laa yaati ilaa bikhayr iska daa xishoodku waxaan khayr iyo wanaag ahayn ma keene iska daa baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay walaalayaal uu inoo macneeyey waa maxay xishoodku waa maxay ma in la aamuso uunbaa mise waa ka macno ballaadhan dadka qaar waxay u haystaan qofka isyar ururiya isyar aamuso uun inuu ilaahay ka xishooday sida kalena macaasida iyo xumaha iyo dunuubta u laaqda sidaa maaha
واجران هبلايا إنما با dad badan oo aamusan oo iska degan oo loo yaqaanay awliye ilaahay oo musiibo kale ka soo daahirto in badan baa la arkaa marka xishoodku aamuska iyo deganaanshuhu waa qayb ka mid ah laakiin ma wada aha waa maxay hadaba xishoodku nabi maxamed baa inoo fasiray calayhi salaatu wassalaam maalmaha ka mid ah buu saxaabada ku yidhi istaxyuu min allahi xaqa alxayaa waar ilaahay ka xishoodka dhabta ah ilaahay idinka mudaya markaasaa waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah innaa lanastaxyi min allah rasuulka ilaahay waan ka xishoonnaayo dee afka iyaga iyo aadinka iyagaba waanu dhowrannaa intaasi kusoo koobeen suubanuhu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laysa daalik taa ma jeedo ee xishoodka dhabta ah baan sheegayaa ilaahay idinka mudan yahay markaasaa waxay yidhahdeen waa maxay rasuulka ilaahay oo xishoodka dhabta ahi walaakin man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa qofka ilaahay si dhaba uga xishoodaa buu nebigu yidhi arrimahan dhowrkaa ha ilaaliyo falyaxfad ira'sa wamaa waca madaxa iyo madaxu wuxuu koobay ha ilaaliyo madaxu wuxuu koobay waa carabkaaga iyo indhahaaga iyo dhagahaaga inaha ilaaliyo ilaahay kaga xisho waxaan ilaahay ogolayn ha ku hadlin oo ha ku tiraabin oo ha dhegaysanin oo ha eegin inahaaba dhowr oo ilaali walbatna walyaxfad ilbatna wamaa xawa caloosha iyo waxay koobtayna ee dhex gelayana qofku ha ka fiirsado wuxuu cunayo afkiisa gelinayo culimada qaarna waxay yidhaahdeen البطن وما حوى وساب ليدو ساب ليدو waxay wadataa labada gacmood iyo labada lugood marka calooshiisi inta saab leeydi qalbigii baa ku jira gacmihii baa ku xidhan lugihii baa ku xidhan intaana ilaahay kaga baqo oo xubintii taranka ku taala intaana ilaahay kaga baqo ilaahay kaga xishoodo waliyadhkur الموت والبلا arinta saddexaad ee ilaahay kaga xishoonaysa waxa weeye waxaad xasuusataan waxaad ku dambeyn doontaan iyo geerida iyo baalinimada aad ku dambeyn doontaan jirkan aad qurxinaysaan la digdigleediin ee kibirkiina la idin qaban laaya bari wuxuu ku dambaynayaa ciid ku dambaynaya bari toolada waxa ilaahay og yahay baa galaya ee qabriga qofku marka la dhigo ku imanaya ee naqsi ah taa xasuusnow jirkaagan quruxda badna iyo baalinimada uu baaliyoobayana xasuusnow waman araada al-aakhirata taraka ziinata ad-dunya qofka aakhira ku mudantahay aakhira xasuusani adduunyada dhalaalkeeda iskuma wareeriyo inta ilaahay ka siiya xalaal abu ka cunaayo ka qaata ka shaqaysta khalaas bahasha qalbiga ma sii raaciyo iskuma haleeyo iskuma iloobo waa sababta aynu kala duwanahay dadka iimaanka leh iyo dadka bilaa iimaanka ah dadka iimaanka leh adduunyo kastay helaan ilaahay iimaan ku arsaaqay iyo hanti kastay shaqaystaan bahashan iskuma wareerinayaan waxay ogyihiin halka u socdaan wixii ilaahay ka garadsiiyay ee wanaag iyo waajibaad ay ka falayaan oo ay ka falaan hantida ay haystaan safarkoodii iyo meesha ku socdaana way dheerta geediga ay markaa xidhayaan oo aakhira ay aaminsan laakiin dadka bilaa iimaanka ah gaalada maadiyaadka ay ugu joogtaa bahashaa markay eryadaan ay soo qabtaan ee intay markaa adduunyo shahawaadkeeda u arkayeenna safraan ay cunaan ay gaadhaan noloshuba bilaa qiime la noqota kadibna waxay ku dambeeyaan isdil iyo intixaar iyo nolosha ka baxaan youtube-kii ku jirtaa ninkii odayga ahaa nin odayo reerkiisii iyo caayiladii oo dhan soo ururiyey waa milyaneer wuxuu leeyahay adduunyada waan ka daalay waa nin odaya waxaan sameeyo garan maayee dee waan isdilayaaye kaalay oo soo ag fadhiista markaa irbad baa loo keenay uu isku duro si uu adduunyada uga baxo markaasay reerkiisii la hadlayaan ay leeyiin ma aad ka daysid xaaji waad ka tegaysaa tan adduunyaha haddabaashu soo noqosho male markaasuu leeyahy waa ka daalay adduunyada waan ka noogaa ii dhiiba iyagoo soo fadhiyo isku mudaya deeta u ka dhaqaajinaya waa saan sheegayna weyaan iimaan baanu lahayn hadduu laakiin iimaan leeyahuu garanayo camal saalixa iyo inuu kasbado iyo inuu ilaahay hor istaagayo kumuu dhaceenba ilaahay buu ka xishoon lahaa tabaaraka wa tacaala kumuu dhaceen inuu isdilo isdhaqaajiyo oo adduunyada ka tago nin baa yidhi intuu qiiroodo muraaqooday aakhira waa goorma markaasaa nebigu su-aal buu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam daamiqo ku noqotay oo madaxa jabisay intuu qiirooday buu qiyaamihii waa goorma markaasaa la yidhi maxaad u diyaarsatay taasaa markaa ku aamusiinaysa taasaa kugu xambaaraysa inaad dadaasho habeen iyo maalinba cibaado iyo khayr u dadaasho dunuubtaadana aad markaa urursato taabiciintii mid ka mid a culimadii taabiciintii ayaa u sii dhimanayay isagoo sakraada lasoo ag fadhiistay bal haddee qofkaa iimaan karana isagana geeridiisa kadibna wuu ilmeeyey markaasaa la yidhi maxaa waabad cibaado badnayd sheekhow maxaad la ilmaynaysaa wuxuu yidhi wallaahi waxa aan la ilmaynayaa xataa haddii ilaahay dunuubtaydoo dhan uu dhaafo waxaan samaynayaa dunuubtayda ahaabaan ka xishoonaya aan ka ilmaynayaa buuri xataa haddii ilaahay dunuubtoo dhan iga dhaafo oo la yidhaha waa lagu cafiyey soco
ilaahay dunuubtii aan ka galay baan ka xishoonayaa aan ka ilmaynayaa buu ka sariiganayaa iimaanku walaalayaal waa sida rajaaxat alcaql qofku inuu caqli badan yahay bay tustaa inuu xishoonayaa waxay sheegaysaa inay tahay da'b iyo dhaqan diiniya oo qof iimaan le uu yahay qofka xishoonaya waxa ay tilmaamaysaa khayr iyo salaax iyo wanaag inay leedahay bulsho ahaan aad baynu u fiicnayn bulsho ahaan marka layna eego dad dhaqan iyo qiyam iyo akhlaaqiyaad loo sariigasho labaynu nahay hadda laakiin waxaad moodaa in bulshadii waxay ilaalin jirtay oo dhan qiyamkii ay ilaalin jirtay oo dhan xayndaabyadii in la isku furayo social media in laga qayliyayo dadka wixii ay xumaan iyo ceeb u yaqaaneen waa asaaliibta reer galbeedku ay maraan wixii ceebta loo yaqaanee foosha xumaa marka maanta lagu dhex sameeyo beri lagu dhex sameeyo la sheego dadku way qabatimaan caadi bay la noqotaa sidaa darteed kuwa samaynaya ilaahay ha ka baqdeen oo ha ogaadeen maanta hadday toodii tahay berri toole waxay duubayeen iyo waxay sheegayeen oo dhani inuu halkaa kasii socon doono kasii dhowdhow yeeri doono oo qiyaamadana uu markhaati ku noqon doono balka isagoo godkiisa ku jira macaasidiisa iyo dunuubtiisu shuruurkii ay samaynayeen boqolaalka kunee daawanaya dhegaysanaya maqlaya ay godkiisa ugu tegaysa ka warraba waa musiibo wey dadka dhegaysanaya ku xidhanna ilaahay ha ka baqeen iyaguna waxaanay mutaabacaynayaan ay dhegaysanayaan ay daawanayaan ay la socdaanna ilaahay ha kaga baqeen ha ogaadaan qofka bani aadamka ah caqligiisu waa mubarmaj waa sida cajaladda waxaa lagu duubaa kadibna waxay ka soo muuqataa madaahirtiisa xubnihiisa behaviorka ama suluuk waxa la yidhaahdo ay ka muuqataa qofka maanta haddii shay loogu celiyo beri loogu celiyo askarta marka la tababarayo caqligu laa waaci iyo waaci buu kala leeyahy ama subconscious mind iyo conscious mind buu kala leeyahy caqli hoosiyo ku sare kan sare waa kan lagu maqlo wax lagu arko shanta dareeme la shaqeeya caqliga hoose laakiin isagu waa makhzuunka waa kay wax ku kaydsamaan waa high diskiga qofka bani aadamka waa cajaladiisa wey qofka waxaa la doonayo inuu mabda u noqdo cajaladiisa hoosaa lagu duubaa sidaa darteed askariga marka la tababarayo erayaa maanta dhan loogu celcelinayaa waxbaa laga dul odhanayaa waxaan laga dul odhanayo aroor walba odhanayo ee waddankayga iyo sidan uu leeyahay calankan difaacaya waanu dhimanaya haddaan uu gurayo aroor walba cajaladiisa hoose ku duubmaysa hadhow inuu waddankii u dagaalamo u dagaal galaa dadka kale uu uga dhiiran oo cajaladiisii baa buuxda isaga qofkan la leeyahay ilaahay xuso safka hore fadhiiso maalin walba ilaahay xusaya muuminka cajaladiisa hoosaa buuxda muumin way xishoonaya macsiyada iyo dunuubta iyo ay ku cuslaanaysa inuu sheego ama sameeyo sidaa darteed qofba barmajuu qaatay haddaba haddaad adigu social mediahan iyo waxaan maalin walba maalayacniga iyo qabashka iyo dadaan adduunya iyo aakhira toona kuu jiidayn dhegaysato si aanad dareemaynin bay waxaanay kuugu duubmayaan ilaa markaa macaasidii iyo dunuubtii iyo wixii xumaay oo dhan ay kula noqdaan wax iska caadi ah wax dadkuba sameeyaan waxaan dhibaato lahayn adigay kaa muuqan ehelkaagay ka muuqan awlaadaaday ka muuqan ha mutaabacaynin dhallinyaraynu u badantihin ha flowgaraynin oo ha raacin dadka khariban ha dhegaysanin agtoodana ha marin si aanad adigu ugu fasahaadin lafahaaga la baxso ilaahay tabaaraka watacaala baynu baryaynaa inuu khayrka iyo wanaagga ina waafajiyo towfiiqda iyo toosnidana alla ina salan siiyo allaahuma inaa nas'aluka alhudaa والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم فاغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين